Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka booliiska iyo militariga kuwaas oo 10kii January ee sanadkan 2023 dilal ka geystay Xamarweyne iyo Balcad. Labada askari ee tiirka la geeyay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Qaasim Ducaale Cabdi iyo Xasan Juule Shaakir, kuwaas oo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada. Qaasim Ducaale oo ka tirsanaa ciidamada qaada canshuuraha ayaa Xamarweyne ku dilay Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani, kaas oo si weyn looga yaqaanay degmadaasi. Abirimo oo dilkiisu sababay caro xooggan ayaa ahaa alaabta yaryar ee loo yaqaano jukaarada ku iibin jiray degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Xasan Juule Shaakir oo isna ka tirsanaa militariga Soomaaliya ayaa dil bareer ah u geystay marxuum Cali Taliye Cariif, kaas oo ka dhacay degmada Balcad ee gobolka. Marxuum Cali Taliye ayaa ahaa wade mooto bajaaj iyo askari saaka la qisaasay ayaa murmay, waxaana kadib goobta lagu toogtay marxuumka. Dhinaca kale waxaa tallaabada qaaday maxkamadda iyo dilka ay fulisay oo dhaweysay marxuumiinta ay horey u dileen labada askari ee maanta la toogtay.